siyaasi Cumar Dube Caliyare oo ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii ka soo yeedhay maalintii shalay ahayd qaar ka mid ah madax dhaqameedka Somaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa ka mid ahaa salaadiintii ka hadlayay arrintii carre ee sida kulul u hadlayay ilaah baa boqoraduna ku jireen ayaa waxaan leeyahay nimanyow waxa rasmi ah hadalka halkiisa loogu tagaaye cadhadiinni meel aan loo joogin bay horta fuushay waxay fuushay inaad wanaaggii aad idinku istirteen ee aad carre u tagteen ee aad wanaagga sidaad idinku sheegteen aad ka keenteen nabadda waad ku ammaanantihiin horta marka ugu horreyso ammaan garxajis baa yimi garxajis dalka kan raggii u soo halgamay ee ingiriis iyo intii aynu ku jirray halgankaba qaybta weyn ka qaatay buu garxajis ka mid ahaa haddaba garxajis inuu seeftii cali bin abi aalib uu markiiba ka siibo galka oo uu dagaal iyo waxaan loo fadhiyin ku hadlo anigu waa la yaabay waa ku celinayaa waayo maanta Somaliland waxay u baahan tahay nabad nin aan nabadi u baahnayn maanta Somaliland ma joogo Somaliland waxay u baahan tahay horumar Somaliland waxay u baahan tahay boogihii in la dhayo in ummadda tan wax loo qabto war dawlad baynu nahay ama halayna ictiraafo ama iyaan layna ictiraafina innagaa is ictiraafno inaynu is ictiraafnana ay waajib tahay dawlad aynu doorannay oo sharaf iyo cisi ku joogta oo aan cidna maanta dagaal iyo xasuuq midna aan kula kacayn baa joogta sidoo kale siyaasiga isugu hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu baaq u daray Colonel Carre sida runtu ay tahay ninka Carre la yiraahdo Carre waxaan leeyahay in reer ceelif weyna ayaa tahay nin reer barya baa tahay nin ciidana baa tahay yaani wax ka dhacdhicino afkaaga yaani wax ka dhacdhicina afka xid waxaanu ku weydiinaynaa nabad waxaanu ku weydiinaynaa caf waxaanu ku weydiinaynaa inaad cis ceelif weyn ku noolaato oo sharafkaaga iyo dadnimadaadii aad ceelif weyn la timaado adiga intaasaan kaaga baxayaa oo kuleeyahay adiga iyo waxa kula socdaba in la cafiyo ayaanu madaxweynaha sharafka leh ee dadnimada leh Muuse Bixi Muusana madaxweynuhu inuu naga aqbalo haddii alla yiraahdo codsiga oo annagoo ah reer Somaliland annagu reer qansax iyo reer bulaale midna anugu odhan maayo ina kaahin baayimi ina kaahin waa la taliye wanaagsan weeye ninkii igu nacay iyo ninkii igu jeclaanaya ciduu dagaal ku qaaday iyo ciduu beleeyay midna ma jiro soo waxaad garatay maaha anigu waxaan ogahay maanta inaynu gacmaha isqabsanno siyaasi Cumar Dube Caliyare waxa ka mid ah siyaasiyiinta madax bannaan ee Somaliland muddooyinkii u dambeeyay Somaliland waxa ku soo noqonaysay oo barbogle ku noqotay arrinta Carre oo salaadiin iyo madax dhaqameed la isku dayay si arrinkaasi loo dhameyn lahaa balse aan weli aan dhamaan ma la oran karaa waqtigii waxa la gaaray aqoonyahankii wax qaradka lagu eegi lahaa in lagu soo dabaalo maxay ahayd arrinta Carre waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan ha way tahay in siyaasiyiinta mutacalimiinta in dheergaradka inay soo galaan oo aan salaadiin oo qurah loo daynay in Carre arrintiisa la qaboojiyo oo Mareykan iyo Yurub iyo meel walba iyo dalka gudihiisaba laga kaco oo arrintaa la dejiyo oo la qaboojiyaa waa waajib way tahay waa waqtigeedii intaasi kadib siyaasi Cumar Dube Caliyare ayaa waxa uu baaq u diray guud ahaanba madax dhaqameedka Somaliland kuwaas oo ugu baaqay in aanay ka aamusin arrintan isla markaana ay ka hadlaan isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa ka mid ahaa salaadiintii Gadabuursi kuwii dhulbahante kuwii warsangeli kuwii tumaalka ahaa iyo kuwii yibirka ahaa iyo kuwii madhibaan salaadiintii
kuwii reer sheekh isxaaq ahaa kuwii ciise ahaa intaba waxaan leeyahay u kaca nabadda oo nin walba runta u sheega oo nabadaynu ku nooloonaynaa oo nabad baynu u baahannaye war nabadda ka hadla oo idinku afka xidhaniye hayse odhanina maanta iscuncunaysaa waxaan la iscunayaana ma jirto iga wallaan la iscunayn intaasaan idiin sheegaya cabdiqaadir maxamed oo xasan Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeeg